kulan wanaagsan daawade halkan waa ila wareed news hadii aad nagu cusubtahay fadlan subscribe saaro like-tan inoo taa muuqaalada aan soo gelino dhiirigelinayno tahay waan ku mahadsantahay socoshadaada muuqaalkan waxaan kugu soo gudbin doonaa maxaa maanta ka cusub dunida dagaalka Pakistan iyo India oo markaasi meelo kala duwan maraya xabajoojintii jilicsan ee u dhaxaysay India iyo Pakistan ayaa wali jirta axadda maanta ah kadib saacado dagaal ah oo habeenkii xalaha dhexmaray labada wadan ee leh awoodda nuclear-ka iyada oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay in uu markaasi ka shaqeyn doono xal u helidda arinta Kashmir labada dal ee xifaaltama ayaa safar 4 maalmood waxa ay ku jireen dagaal culus kii ugu xumaa muddo ku dhow 30 sano iyada oo gantaale iyo diyaarado aan duuliye lahayn isku garaacayay xarumaha military ee labada dhinac halkaas oo ay dad badani ay ku dhinteen heshiis xabajoojin ah ayaa laga gaaray kadib dadaalo diblomaasiyadeed iyo sidoo kale cadaadis ka yimid Mareykanka hase yeeshee dhowr saacadood gudahood waxaa mar kale la maqlayay madaafiic markaasi ka dhacaysa Kashmir tan dhinaca Hindiya oo ah halka markaasi uu dagaalku intiisa badan uu ka soconayo goobjoogayaal saraakiil iyo waliba sidoo kale dadka deegaanka ah waxay sheegayaan in qaraxyo ay ka dhaceen magaalooyinka xuduudda ku dhow dabayaaqadii sabtidii aynu soo dhaafnay India waxa ay ku eedeysay Pakistan inay jabisay heshiiskii xabajoojinta ahayd iyadoo ciidamada India la faray in ay markaasi si xoogan uga jawaabaan haddii lagu celiyo jibinta heshiiska Pakistan ayaa dhankeeda waxa ay sheegtay in markaasi ay u hoggaansan tahay xabajoojintii lagu dhawaaqay isla markaana India mas'uul ay ka tahay xadgudubyada hadda dhacaya وبرجي أحد مانتا دجالكي يا قرحيدي هبينكي دعي أي استاجي لبعض الدناء حدود سيدا الشيجين مرقاتياشة وكالة دور كيرويتاس كورنتدا أي دب وقصو لعبتي أنت بدل مقالوين ككل حدود إنديا كدي مركي هبين هره ومجدي هالكاسي هريي دونالد ترامب أي أماني هجامياشة لبعض الدل أوجلادي جوجينته علاده مركاسي كتاجن قبلك inkastoo aanan si rasmi ah aan uga wada hadlin haddana waxaan si weyn markaasi aan u kordhin doonaa ayuu yiri ganacsiga labada dal ee waaweyn sidoo kale waxaan idin la shaqeyn doonaa si xal looga gaaro arrimaha Kashmir ayuu Trump ku yiri qoraal uu soo dhigay barta markaasi Truth Social magaalada xuduudda Amirsta oo ah goobta uu ku yaalo Golden Table oo ah meel ay markaasi ay ka heebeystaan shaqadoodu ayaa markaasi waxa subaxnimadii laga qaaday sareen taasi oo calaamad u ahayd in nolosha caadiga ahayd dib loo bilaabo waxaana wadooyinka lagu arkayay dad markaasi dibadbax u soo baxay dagaalka ayaa bilowday Arbacadii 2 toddobaad kadib markii 26 qof lagu dilay weerar lagu qaaday Hinduuda ku nool magaalada Banglam ee markaasi Kashmirta dhanka India taniya markii argagixisadu ay weerartay dadka Bahalgam waxa markaasi si hore leh aan u xirnay dukaamada waxaana jiray cabsi weyn aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ugu yaraan aanan arkin doonin dhiig daata labada dhinac ayuu yiri Satfir Singh oo ah dukaanle 48 jir ah oo ku sugan Amirsta sidoo uu sheegay Reuters mas'uuliyiinta Pakistan ayaa sheegay in rasaas laga maqlayay magaalada markaasi lagu magacaabo Bhimber ee Kashmirta Pakistan habeenkii xal ahayd balse meelo kale oo dagaal ka dhacay ayaan jirin sidoo kalena aysan jirin wax khasaare ah labada dal ee ka dhashay kala galkii gumeystii Ingiriiska sanadii 1947 ayaa 3 jeer dagaalamay 2 jeerna waxa sabab u ahaa muranka dhanka Kashmir India oo Hinduugu u badan yahay iyo Pakistan oo muslimiintu u badan yihiin ayaa mid waliba gacanta ku haysa qaybo kamid ah Kashmir iyada oo mid waliba uu sheeganayo lahaanshiyaha gobolka oo dhan India waxay ku eedeysay Pakistan inay taageerto kacdoonka hubeysan ee ka socda Kashmir kacdoonkan oo bilowday sanadii 1989 oo sababay dhimashada 10,000 oo qof ah sidoo kalena waxay Pakistan ku eedeysay in kooxaha Islaamiyiinta ah ee fadhigoodu u yahay Pakistan ay ka geysteen weerar gudaha wadanka India Pakistan ayaa dhankeeda waxay sheegtay in ay markaasi siiso taageero moraal siyaasadeed iyo waliba sidoo kale diblomaasiyadeed kooxaha Kashmirta markaasi oo laleynaya